ma jirto daasad dhakhtareed oo ilmo la siiyaa. All of them waa poison. hadda idin melihi waa wax lagu meel waa sun carruurta la siinayo, laakiin shirkadka oo inay dhaqaale waxay leeyihiin rag u fudaydiya waxa kale. ma aha war Mustafa sheegayo, khubaradooda caynkaa leh. wax uga fiican naaska hooye ma jiro ilmeed. ilaahay naaskaasi uu siiyey ilmaha da'du joogo wuxuu u baahan yahay ilaahay ka soo daaya. maalinta lagu bilaabayo waxaynu dhahnaa waa dambarku waa maxay? waa chemical loogu talagalay meelaan weligeed cunna marin buu marayaa inuu hagaajiyo, safeeyo. marka hore naasku waa biyo ilaahay baa ugu talagalay. ilaa iyo marka dambe laga gurinayana waa caano adag, waa dhaqayo gela raggii maali jiray. dhaqayo geeliyo miya isku mid ah marka bilowga yahay dambarka laga maalayo isku nooc maaha. intaa u dhaxaysa caanu way isbedelaan. mar kasta chemicalada nooc baa ku badan, vitaminada nooc baa ku badan, proteiniska jaad baa ku badan, ku xidhan da'da ilmahan iyo siduu u korayo. okay, ilmaha naaska marka loo bilaabo yaryar baa loo siiyaa. markuu korona waa inaad dabdiga bartaa. markuu aan yidhaahdaba in la siiyo maaha. hadhow ilaa laga gaadhayo marka laga daynayo saacaduhu way koraan. waxaynu cunnadaynu barraa. soomaalidu inta badan mooyi ma cunnaday laxajeclo ka qabaano ayuu daadinin iyo waxaasaa laga yaabaa. gaalada maaragteen kursi yar inta lagu xidhxidho ayaa midaan waxbaba cuni karayn loo dhiibaa. beleer yar iyo malqacad loo dhiibaa. markaasuu halka ku daadi halka waxay rabaan inay hore u train gareeyaan. dabeetna traininkaa markuu ka baxo waxaa laga yaabaa 2 jir maalintuu gaadho ama 3 jir maalintuu gaadho cunnadiisa isagaa cuna. innagana 4 jir islaana afka kaga guraysaa baad arkaysaa, ama 5 jir soo fadhiiso waya halkan. waa si qaldan. ilmuhu intuu yar yaynu u train garaynaynaa inuu barto alictimaad cala nafs. qofku inuu isagu isku fillaan karaad rabtaa inaad barto. siduu isugu fillaanayana maalinba shay baad trainingkiisa bilaabaysaa. haddaad kaadi ka daynta maalin bilowday waxaad bilaabaysaa cunnadana inuu isagu barto sida loo cuno. maalmaha hore malqacaddu kolba dhan bay afka ka maraysaa, halkuu isku daadinayaa. iminka miya gacantaadii afkaaga aad la daydaydaa? may waa la train gareeyey. trainingkii markuu ka batay ayaa haddaad indhaha isku haysiyo haddaad afka haysatoona mirna miyaad la waayaysaa afka. laakiin ilmuhu markuu yari wuu la waayaa. trainingkaa markuu muddo wado alictimaad cala nafsi buu bartaa. innagu waa sabir daranna. ilmaha markaynu iskuulka geynayno adigoo degdegsan dabeetana labada kabood adaa ku jufo yidhaha warstaag, xadhigga u xidha, islaanta u xidhxidha. haddaad kuwa gaalada ilmahooda aragto isagoo 3 jira waxa la baraa siduu dharkiisa u xidhan lahaa. soo qaada ka ahaa badhinkaa xidh, isagaa loo sheegaya u xidhanaya. maalmaha hore nusa saac bay qaadanaysaa inuu dharka xidhaa. meeshan yare ay geeyaanna habarta joogtaa ka furi mayso. waxay odhanaysa halka istaag, fur, kaba horta iska bixi. wuu bixinaya, halkaasaa isaga saaraya. sharaba halkan saar, kan bixi halkan saar. waxaa la barayaa qofka kani inuu ismaamuli karo. waa la caawin kari lahaa markiiba daqiiqad baa lagu samayn karaa. laakiin waxaa loo train garaynayaa maxay? inuu barto. afkaa yimi bini aadamku siduu afka ku bartaa. sugu bartaa marka hore wuu dhegaystaa. si uu dhegaysanayo codkuu bartaa. dabeetana wuxuu ugu hor bartaa codka hooyadii iyo ka aabihii. hadday hadlaan wuu eegayaa isagoo waxay ku hadlayaan aan fahmaynin. guriga haddii 5 qof joogto oo ilmaha halkan saaran hooyadii hadasho iyaduu eegayaa. codkeeduu ka bartay codadka kale. kadib asmaaduu bartaa inta badan iyo erey yaroo isticmaalo. jumlo ma barto. caano ayuu leeyahay markuu caano doonayo. caano isii ma wada odhan karo.